بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ku soo dhawaada muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan halkan soo gelin jirnay. muuqaalkan waa qaybtii afraad oo ku saabsanaa xalay su'aalahan oo ay saarneed 30 dhibcood. su'aasha ugu horeysa marka raadi xidid saddex jibaaranaha. raadi xidid saddex jibaaranaha tirooyinka soo socdo. ba oo ah 1000 yani xidid saddex jibaaranaha 1000 soo hel. sidoo kale ta waxaa soo heysaa xidid saddex jibaaranaha 1728. haddii aad dhahid marka furfuris oo aad soo qaadatay su-aasha u horeysa ee ba oo ah 1000 kunkan waxaa la rabaa inaad soo saarto xidid saddex jibaaranihiisa. waxay la mid tahay marka maadaama loo dhahay xidid saddex jibaarane waa inaad taqaanaa sumadda xidid saddex jibaaranaha. marka sumadda xidid saddex jibaaranaha ayaa waxaa gelinaynaa 1000. saasay noqonaysaa marka. waxay la mid tahay marka intaas kunka meesha ka imaada la sheegaa marka. yacni waa inaad taqaanaa number ama waa in la ogyahay tiro marka la isku dhufto 3 goor keeni karto 1000. marka tiradaas waa 10. saddex jibaaranihii oo 1000 ku jirtay booskii 1000 waxaa ku bedelaysaa marka 10 oo isku dhufsan 3 goor, oo haddii dib iskugu dhuftana 1000 dib kuu siin karto ama kugu soo celin karto. intaas waxay la sii mid tahay marka. intaas waxay la sii mid tahay 10ka oo saddex jibaaranaha ku jiro sida ujeedidba. yacni waxay isku dhufsantahay 3 goor. xidid saddex jibaaranaha markaa qorano waxay noqonaysaa 10 lagu muujiyey 3. yacni muujiyaha 3 wuxuu ka dhigan yahay in 10kii uu isku dhufsanaa inuu isku dhufsanaa 3 goor. intaas waxay la mid tahay marka muujiyaha saaran 10ka iyo muujiyaha saaran xididka waa 3 yacni 10ka muujiyihiisa waa 3 xididkana muujiyihiisa waa 3. way isla baxayaan marka si nadiifa waxaa ku soo haraayo 10 soo harayso. marka 1000 wuxuu xididka saddex jibaaran uga baxaa 1000 uga baxaa. haddii dhanka kale aa fiirisid ayadana su-aasha ta waxaa waaye soo hel xidid saddex jibaaranaha 1728. intaas waxay la mid tahay horta maadaama lagu dhahay xidid saddex jibaaranaha 1728 soo hel 1728 waxaa gashanaysaa ama ku dhex qoraysaa xidid saddex jibaarane. haddaa ku qorto saasay noqonaysaa marka. intaas waxay la sii mid tahay sidoo kale sidii hore aan soo sheegno kale waa inaad taqaanaa number marka 3 goor la isku dhufto ku siin karo 1728. numberkaas yaa marka waa 12. 12 waxaa isku dhufanaysaa 3 goor dib waxay kugu soo siinaysaa 1728. intaas waxay la mid tahay marka. haddii aad fiirisid marka xididka saddex jibaaran waxaa dhexdiisa ku qoran 12 oo isku dhufsan 3 goor. haddii la soo gaabo waxay noqonaysaa marka 12 lagu muujiyey 3 oo xidid saddex jibaaran la geliyey. intaas waxay la sii mid tahay marka 12ka waxaa muujiye u ah 3 xididkan waxaa muujiye u ah 3. marka muujiyaha 12ka iyo xidid saddex jibaaranaha way isla baxayaan si nadiif yani way isla baxayaan marka dhexdeena way isu dhigmaan waaye si nadiif ah. waxaa soo haraysa marka 12 1728 marka waxay xididka saddex jibaaran uga baxdaa 12 uga baxdaa. su-aasha labaad ee ku xigto waa raadi bedka saddexayalka hoos ku qoran. raadi bedka saddexayalka hoos ku qoran. saddexayalka marka bedkiis inaad soo saartaa lagaa rabaa. saddexayalka saasuu noqonaa marka. saddexayalka waa saxankaas meesha ku qoran inaad soo heshid bedkiisa inaad soo heshid. marka saddexayalkaas waxaa lagu siiyey salkiisa oo ah xa laga jaray 4 iyo joogiisa oo ah xa lagu daray 3. marka maxaa lagaa rabaa inaad soo hesho? waxaa lagaa rabaa inaad soo hesho bedka uu leeyahay saddexayalkaas. bedka uu leeyahay saddexayalkaas bedna waxaa la dhahaa inta gudaha ah ee saddexayal gudihiisa ah inaad soo saartid. furfuris haddii aad dhahdo marka bedka saddexayalka maxaa lagu helaa? bedka saddexayalka waxaa lagu helaa half
oo lagu dhuftay joog yani jooga uu leeyahay saddex xagalka oo lagu soo dhuftay sal oo yani laga wado salka uu leeyahay saddex xagalka. intaas waxay la mid tahay haddaad dhahdid marka haafka sidiisu kusoo qaado lagu dhuftay jooga saddex xagalka meeqaa waaye waa xa lagu daray saddex lagu soo dhuftay salka saddex xagalka asagana waa qaybta jiifto ee salka ah ayadana lagu dhuftay xa laga jaray afar. haddii markaa sii wadid oo aad dhahdid yani su-aashii oo weli ma dhammaan way socotaa bedka waxaa lagu helaa soo sheegnay haaf lagu dhuftay jooga wuxuu ka koobnaa marka xa lagu daray saddex xada waxaa ku dhufataa salka ku dhufo oo ah xa laga jaray afar lagu daray saddexna waxaa ku dhufataa isla jooga ku dhufso oo ah xa laga jaray afar. intaas waxay kula mid tahay marka haafka haddaad soo qaadatid oo aad dhahdo lagu dhuftay xada buluuga ah haddaad ku dhufatid xada balaagta ah ee madowda ah waxaa soo baxayso xa laba jibaaran yani xa hadda xa ku dhufatid xa laba jibaaran. sidaasoo kale waxay noqonaysaa afar waxaa ku dhufataa sidoo kale xa ku dhufo adigoo ka bilaabaysid calaamadda xada banaanka tahay calaamadeeda waa lagu daray afarta gudaha ku jirtana calaamadeeda waa laga jaray isku dhufo marka waxaa soo baxayso laga jaray afar haddana xa ku dhufo afar xa kuu soo baxayso. intaas yani waxaa ugu gudbaysaa qaybta hore. sidoo kale qaybta ku xigto lagu daray saddex haddii aad ku dhufatid xa haddaa ku dhuft maxaa kuu soo baxaayo lagu daray saddex xa kuu soo baxayso yani marka hore xada gudaha ku jirto waxay wadataa lagu daray saddexda banaanka taalana waxay wadataa lagu daray haddii lagu dar lagu dhuftana maxaa soo baxayso lagu darayaa soo baxayso. sidaasoo kale lagu darida banaanka taale ee buluuga ah haddii aad ku dhufatid calaamada ka jarka ah ee gudaha ku jirta ee afarta ka horeyso waxaa soo baxayso laga jaray saddex waxaa ku dhufataa marka afar waxaa soo baxayso 12 soo baxayso. intaas waxay la mid tahay haddaad dhahdid bedka wuxuu la mid yahay haaf lagu dhuftay xa laba jibaaran. sidoo kale marka labadan jeeram ee dhexe laga jaray afar xa ee lagu daray saddex xa way kala jarmayaan maadaama sumadooda ay kala duwan tahay. haddii marka afar xa laga bixiyo saddex xa waxaa soo baxayso hal xa soo baxayso laakiin sumadda waa laga jaray maadaama labada number midka ugu weyn la qaato calaamadiisa maxay noqonaysaa marka laga jaray xa ay noqonaysaa. intaas marka waxaa kasii jirsan 12 marka jawaabta u dambaysa waa intaas. bedka saddex xagalka su-aasha labaad waa haaf lagu dhuftay ama nus lagu dhuftay xa laba jibaaran oo laga gooyey xa oo laga sii gooyey 12. su-aasha saddexaad qor lamaane horsan ee isla egtan ya waxay la mid tahay laba lagu dhuftay xa loo geeyey saddex kuna muuji graf yani graf inaad ku muujiso ayaa lagaa rabaa inaad samaysid. haddaba su-aashan waa tusaale ku yaalo buugga xisaabta weliba wuxuu ku yaalaa buugga 8aad asagoo tusaale ah oo ka shaqaysan. waxaa ka heli kartaa buugga 8aad ee buugga fiiri meeshaas ayuu ku yaalaa marka waa rajaynaya inaad halkaas ka daalacato wixii oo yani fahankiis oo cuslaadana waa isla arkaynaa laakiin ma cuslaanayo ka fiiri buugga 8aad ee buugga. halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawada haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad janaalka soo booqato waxaa kaa dalbanaynaa ama kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhahato si muuqaalada marka ugu horeyso aan soo gelino ay kuu soo gaaraan. si lamid ah waxaa kaa codsanaynaa inaad like saarto asxaabteeni hore ayagana sidaasoo kale waxaa ka codsanaynaa inay laagta ay saaraan. dhammaantiin waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.